bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsan idin lahaantiin badda wadayaal kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee naga soo gaadhaya dalka Itoobiya. qodobada wararkeena ugu doorka roonaan idin haynana waxaa ka mida TPLF oo duqeymo raaxada uga qaaday habeennimadii xalay ahayd caasimada Eritrea iyo sababaha ka dambeeya oo la shaaciyay. gantaaladii xalay iyo habeen hore TPLF ku duqeysay Casmara iyo Bahardar oo fashiliyay ciidanka cirka Itoobiya iyo tabartooda. sirdoonka Itoobiya oo 14 qof oo Al-Shabaab ku qabtay caasimada dalka Itoobiya ee Addis Ababa. Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed oo ciidamada Tigreega ugu baaqay 3 maalmood inay isku soo dhiibaan haddii kalena la baabi'in doono, iyo arrin cajiib ah oo ugu baaqay muwaadiniinta dalka Itoobiya 17 bishan aynu ku jiro maalinta Talaadada ah inay sameeyaan weerarada shacab oo fara badan ay ku dhinteen oo ka dhacay deegaanka Benshangul. xaalka ayaana u muuqday in nabadii ka guurtay buuraleyda dalka Itoobiya. maxaa ka jira in diyaaradaha Ethiopian Airlines ay joojiyeen duulimaadyadii ay ku tagi jireen gudaha dalka Soomaaliya? xog ayaan idinka haynaa. qaxooti ka qaxay gobolka Tigreega oo daadsan deegaanka Al-Fashqa ee xuduudda Suudaan. hay-adaha caalamiga oo la sheegay inay ka gaabiyeen iyo baahiyo fara badan oo halkaasi laga soo sheegayo. Mareykanka iyo Canada ayaa muwaadiniintooda kala baxaya gobolka Tigreega. intaasi waa qodobadeena wararka ugu doorka roon. haatanna kusoo dhawaada iyagii oo faahfaahsan. aan ku horreynay wararka hordhaca ayaa sheegaya in habeennimadii xalay ahayd gantaalo lala beegsaday dalkaasi Eritrea. kooxda TPLF ayaa gantaalo la dhacday caasimada Asmara ilaa iyo 3 meelood ayaana la sheegay in bartilmaameedsadeen, waxaana ka mid ah meelaha la duqeeyay garoonka diyaaradaha Casmara, wasaaradda warfaafinta iyo sidoo kale xarunta quwada korontada. inta uusan weerarku dhicin saacado ka hor waxay maamulka Tigreeg u sheegeen inay diyaariyeen goobo gaar oo ay duqeymo ka fulin doonaan. kooxda TPLF oo warbaahinta la hadlaysay waxay sheegtay in Eritrea iyo meelo kale laga soo weerarayo, halkaasina ay ka fulin doonaan duqeymo. intaasi kadibna waxaa ka hadashay dowladda Eritrea oo galabta sheegtay in dagaalka ay soo gali doonto haddii kooxda TPLF arrimahaasi ku kacdo, waxayna ku goodiyeen annaguba kabriid kuma hubaysnin. haddaba muxuu yahay ujeedada kooxda TPLF ee weeraradani ku xambaaray? TPLF waxay rabtaa inay dagaalkan ballaadhiyaan isla markaasina si toos ah u soo geliyaan dalka Eritrea. arrintaasi waxay keenaysaa wareer kale. xukuumadda Abiy Ahmedna waxay wiiqaysaa taageeradeeda maadaama dal shisheeye uu deegaan Itoobiya ka mida kusoo duulay uu noqonayo. waxay uga gol leeyihiin inay dagaalka ka dhigaan mid geeska ku faafay si ay dunidu si degdeg ah ugu soo farageliso isla markaasina halkaasi uga helaan garab. waana sababta ilaa iyo haatan kooxda TPLF ugu dhawaaqi weyday madax bannaani qodobka 39aad. haddii ay isticmaalaanna waxay noqonayaan dal kale, waxaana lagu qasbanaanayaa inaan cidna loo aaba yeelin. dadka Itoobiyaankuna ay u midoobi lahaayeen maadaama dalkii la kala goynayo. waana sababta baarlamaanka ay wada maamulaan ilaa iyo haatan aysan u fadhiisinin uguna dhawaaqin ilaa iyo heer go'itaan. ujeedada labaad ayaa ah in kooxda ay ishayaan ay cabsi geliyaan isla markaasina muujiyaan inay meelo kale waxyeello u geysan karaan. isku soo wada duubo, haddii Asayaas arrimahani si toosa uga falceliyo waxay wadada u xaadhaysaa rabitaankoodii. Abiy Ahmedna waxaa hortaalla caqabada inuu Asayaas xakameeyo maadaama Asayaas fawarqi uu yahay nin macaangaga. gantaaladii xalay iyo habeen hore TPLF ku duqeysay Casmara iyo Bahardar oo fashiliyay ciidanka cirka Itoobiya iyo tabartooda. marka laga yimaado wax ka qabashada iyo inay goobaha ay yaalaan lagu burburiyo gantaaladaasi si looga hortago in gantaaladani isticmaalaan awoodaha loogu talagelin sida haatan dhacday, taliyaha ciidamada cirka Itoobiya Hayalma Merdesa oo maalmo ka hor warbaahinta la hadlayay ayaa yidhi gantaalada ay haystaan dhagax ayaan ka dhignay, waxay awoodaan ma laha, shacabku unbay ku khalkhalgelin karaan. kooxda TPLF sawiro unbay isaga soo qaadi karaan gantaaladaasi.
halkan annaga oo joogna ayaan gantaaladaasi iyo raadaaradaba fadhiisinay. hadhow deegaanka markii aan xoreyno ayaanan dib u howlgelin doonaa. sida loo rido halka ay gaadhayaan hubka nooca ay u baahan yihiin annaga unbaan garanayna, gacantoodana waxba kuma jiraan, ayuu yidhi taliyaha ciidamada cirka ee dalka Itoobiya. hadalkan kasoo yeedhay taliyaha ayaa beenoobay. kooxda TPLF-na waxay isticmaashay gantaaladaasi. haddaba ma dhagxaantii Yalma sheegay ayaa lagu duqeeyay Casmara iyo Bahardar? waa su-aal u baahan inay ka jawaabaan ciidanka cirka Itoobiya oo fadeexad dhex fadhiya. sirdoonka Itoobiyana waxaa la sheegay in 14 qof oo Al-Shabaab iyo Daacish lagu eedeeyay ay ku qabteen magaalada Addis Ababa. dowladda Itoobiya ayaa xabsiga dhigtay 14 ruux oo looga shakisan yahay inay yihiin Al-Shabaab iyo Daacish oo lagu eedeeyay inay qorsheynayeen weeraro argagixiso oo waaweyn oo ka fuliyaan caasimada Addis Ababa. sirdoonka qaranka dalka Itoobiya ayaa sheegaya in kooxahan argagixisadii isku soo dayeen inay ka faa'iideystaan xaaladda amni ee dalka, isla markaasina soo abaabulaan weeraro argagixiso oo dad badani ay ku dhintaan. Itoobiya ayaa inta badan ciidankeedii u daabushay dhanka Tigreega oo 2 toddobaad dagaalo xoogan ay kaga socdaan. waxaa la sheegay in kumanaan ciidanka AMISOM ka tirsan ay Itoobiya kala soo baxday Soomaaliya si ay dagaalada waqooyiga ka socda uga qayb qaataan. ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed ayaa ciidamada Tigreega ugu baaqay 3 maalmood inay isku soo dhiibaan, haddii kalena la baabi'in doono. war qoraal oo ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa lagu yidhi sida tan: waxaan ciidanka gaarka ah ee Tigreega ugu baaqaynaa inay milatariga isku soo dhiibaan, waxaana la farayaa inay muddo 2 ama 3 cisho ay naftooda ku badbaadsadaan. waxay dagaalo culusi weli ka soconayaan gobolka Tigreega, halkaasi oo toddobaadkii 2 ay ku hardamayaan ciidamada deegaanka Tigreega iyo kuwa dowladda federaalka ee milatariga. weli laguma kala adkaanin dagaaladaasi oo toddobaadkii 2 soconaya, waxaana baaqan ra-iisul wasaaraha ka soo baxaya ay dad badani u fasirteen siyaabo kala duwan. dhanka kalena 17 bishan aynu ku jiro maalinimada Talaadada ayuu arrin la yaab leh ku baaqay ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed inuu qof waliba oo muwaadin Itoobiyaan sameeyo. ra-iisul wasaare Abiy Ahmed ayaa sheegay inuu aqbalay baaqa loogu soo jeediyey in ciidamada lagu dhiirigeliyo. baaqaasi oo loogu magacdaray waxaan u istaagaynaa sharafta ciidamada milatariga ayaa maalinimada Talaadada 17 Noofembar guud ahaanba dalkaas ku xilli ka dhici doonta. waxaa la sheegayaa waqti 2 daqiiqa saacadu marka ay tahay 5:15 ama 11:15 barqanimo in qof kasta halka uu joogo uu kaga qayb qaadan doono. 1 daqiiqo gacanta ayaa laabta la saari doonaa iyadoo la taagan yahay, daqiiqada kalena qof kasta halka uu joogo ayuu sacabayn doonaa iyadoo aan la kala goynaynin sacabkaasi. waxaa la sheegay in qof kasta xilligaasi halka uu joogo uu kaga qayb qaadan doono, haddii ay tahay xafiis dowladeed, gurigiisa ama meesha uu ku sugan yahayba. weerarada shacaba oo fara badan ay ku dhinteen ayaa ka dhacay deegaanka Benshangul. xaalka ayaana u muuqda in nabadii ay ka guurtay buuraleyda Itoobiya. dad rayid ayaa la dilay kadib weeraro ay rag hubaysani ku qaadeen gobolka Benshangul Gumuz, degmada Dibata ee aaga gobolka Matakal. laamaha ammaanka gobolka Benshangul Gumuz ayaa sheegaya in weerarkani lagu qaaday gaari ay saaraayeen dad shacab oo marayay wadada Wambera. wakiilada nabadiidka ee taageeraya kooxda TPLF ayay laamaha ammaanka gobolkaasi ku eedeeyeen dhacdadani. inkastoo aysan shaacinin tirada dhabta ah, laamaha ammaanku waxay sheegayaan in dad rakaab ah oo saara gaadhi lagala degay, dhammaantoodna lagu laayay hal meel. gobolkani Amxaaradu degto ee deegaanka Benshangul ayaa laga soo warinayaa falal amni darro. ciidamada qaranka iyo maleeshiyaadka deegaanka ayaana ku howlan sidii xal loogu heli lahaa amni xumida halkaasi ka jirta. ciidamada ka howlgala aagaasi ayaa sheegaya in weeraro kale ay ka hortageen. dhacdooyinkani ayaana lagu eedeynayaa kooxaha xidhiidh la leh TPLF oo doonaya in dagaalku uu ku ballaadho guud ahaanba dalka Itoobiya. haddii ay dhab noqoto eedeymahani, kooxda TPLF ayaa lagu dari doonaa liiska kooxaha argagixisada
oo ay iyagu horey dad badan ugu dari jireen. Maxaa ka jira in diyaaradaha Ethiopian Airlines ay joojiyeen duulimaadyadii ay ku tegi jireen magaalada Muqdisho iyo guud ahaanba Soomaaliya? Maalinnimadii shalay ahayd ayaa waxaa soo baxayay warar sheegaya in diyaaradaha Ethiopian Airlines ay joojiyeen duulimaadyadii ay ku tegi jireen dalka Soomaaliya. Waxaa sababta lagu sheegay in diyaaradahani oo inta badan ay bayloodya ka ahaayeen qowmiyadda Tigreega laga shakiyay inay ku duqeeyaan madaxtooyada dalka Itoobiya looga arrimiyo. Goor dambana waxaa soo baxday in shaqadiiba laga joojiyay duuliyayaasha qowmiyadda Tigreega. Si kastaba ha ahaatee, waxaa magaalada Muqdisho ka degay 3 diyaaradood maalinnimadii shalay ahayd. Diyaaradahaasi oo kala ahaa falaydkii subaxnimada oo diyaaradda ET377 ay ka degtay magaalada Muqdisho, iyadoo galinkii dambena ay ka degtay diyaaradda ET379 iyo weliba cargo flight. Haddaba duulimaadyadani ayaa been ka dhigaya wararkii sheegayay in duuliyayaashii Tigreega shaqada laga fadhiisiyay iyo in diyaaradaha Ethiopian aysan tegi doonin gudaha Soomaaliya. Qaxootigii ka soo qaxay gobolka Tigreeguna waxay daadsan yihiin deegaanka Al-Fashqa ee xuduudda dalka Suudaan. Hay'adaha caalamigana waxaa la sheegay inay ka gaabiyeen iyadoo nolosha dadkaasina aad looga dayrinayo kadib markii ay ku dagaalameen biyo iyo waxyaabaha quutul daruuriga, kuwaasi oo si mutadawacnimo ay u siiyeen ciidamada ilaalada xuduudda Suudaan. Qaxootigani oo maalin waliba kumanaan ka gudbayaan xuduudda Suudaan iyagoo ka cararaya gobolka Tigreega ee dagaaladu ay ka socdaan ayaa Suudaan ka helin soo dhaweyn, iyadoo meelihii ay hay'adaha caalamigu u qorsheeyeenna ay buux dhaafeen kuna yaraadeen. Sawirro baraha bulshada la soo geliyay ayaa muujinaya dad baahi badani ka muuqato oo biyo booyad laga shubayo ku dagaalamaya. Ugu dambeyntiina, Mareykanka, Kanada iyo Shiinaha ayaa muwaadiniintoodii kala baxaya gobolka Tigreega. Waxaa la sheegayaa in diyaarado khaas ay u dirayaan gobolka Tigreega si ay u soo daabulaan dad lagu sheegay tiradooda 1,000 oo u kala dhashay dalalka Mareykanka, Kanada iyo Shiinaha, asal ahaana ka soo jeeday gobolkaasi Tigreega. Intaasi ayaan kusoo gabagabeynaynaa wararkeennii. Waad ku mahadsantihiin la socodkiina.